ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ayaa maalintii 20aad afurin u sameeyay dadka danta yar ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo Samafale Abuukar Shuut Xuseen ayaa alle ugu mahadceliyay inuu soo gaarsiiyay maalinta 20aad ee barnaamijka afurinta dadka danta yar ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo. Gudoomiyaha ayaa xusay in ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo markasta garab iyo gaashaan u yahay dadka danta yar gaar ahaan dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ah. ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ayaa sii wadi doona isla markaana ka qayb qaadan doona maalmaha kooban ee kaarsan bisha barakeysan ee Ramadaan ololaha lagu afurinayo dadka danta yar ee ku nool kaamamka barakacayaasha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Rahmaan Rahiim, maanta waa maalintii 20aad ee barnaamijkeeni afurinta dadka danyarta ah ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo. maanta sida caadino ahayd bakaamka duleedka magaalada Muqdisho aan joognaa. waxaan sameynaynaa afurintii ururka Doosyo markasta wuxuu kaalin ka qaadanayaa dadka danyarta inuu garab istaago. waana sanadkii 7aad ee barnaamijkan afurinta ah oo ururka Doosyo uu sameynayo. waxaan rajaynaynaa inta yar oo noo dhiman 10 maalmood ama 9 maalmood oo noo dhiman si wanaagsan Ilaahay inuu noogu gaarsiiyo ayaan rajaynaynaa insha Allah. هذا ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.